bismillaahi raxmaani raxiim kulanti aboon saaxiibada inagu xiran oo meel walba oo joogtaan iyo si walba muuqaalka iyo gudiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay run sheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxa kamid ah Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo Rooble kaga digay inuu horistaa ku sameeyo kursiga uu ku soo guuleystay xilli Rooble isku dayay inuu isbaaro u dhigto kursiga Fahad Yaasin isagoo gadaal ka riixaya guddiga doorashada heer federaal ciidamada Puntland oo howlgalla culus iyo duqeymo ka fuliyay buuraleyda galgala iyo Mareykanka oo xayiraado hor la ku soo rigay madaxda Soomaalida kadib dib u dhaca doorashada qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada inagu xiran oo idin soo gudbin doonaa hadduu Rabiiraale ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadaan like nagu dhiirigelisaan gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle saaxiibayaal sida hore warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno Fahad Yaasin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa Rooble kaga digay inuu horistaa ku sameeyo kursiga dhawaan ku soo guuleystay xilli Rooble isku dayay inuu isbaaro u dhigto kursigaasi isagoo gadaal ka riixaya guddiga doorashada heer federaal waxa xilligan gabagaba maraysa doorashada dalka oo muran badani hareeyay hufnaanteeda waxa uu Rooble sameeynaya tilaabooyin u muuqdeen dhalaan siyaasadeed isagoo sameeynaya habraacyo shaki badan dhaliyay doorashada dalka ayaa hadda waxa ka dhaqaaqi laadahay Dani Axmed Madoobe iyo Rooble waxayna isku dayayaan inay sameeyaan wax walba oo Rooble waqtiga loogu dheereyn karo Rooble ayaa soo saaray jadwal uu ku sheegay inuu qayb ka yahay howlaha doorashada isagoo si toos ah u sheegay inuu bixinayo shahaadada xildhibaannimo midaas oo shirqool iyo hor istaag uu rabo inuu ku sameeyo kuraasta qaar isagoo si gaar ah u bartilmaameedsanaya Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo khilaaf kala dhaxeeyo balse Fahad Yaasin oo fahamsan damaca Rooble ayaa wararku tilmaamayaan inuu Rooble kaga digay inuu hor istaag ku sameeyo kursiga ay beeshiisu soo siisay la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa ila xogogaala waxayna xaqiijiyeen xafiiska Rooble oo kaga digay damaaciga ay wadaan oo ah isbaaro loo dhigto kursigiisa waxa uu tilmaamay in kursigani uu ka weyn yahay kursi la hor istaagi karo maadaama uu maray habraaci loogu talagalay Fahad ayaa sheegay in midani ay ka dhigan tahay waxa uu ugu yeeray waqti dheereysasho maadaama waxaani aysan suuragal u ahayn Rooble iyo kooxdiisa markii ay warqadani ka soo baxday ayaa isku si waxa ugu hor yimid maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo ay kala hogaamiyaan Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo Qorqor waxayna sheegeen in aysan ku raacsaneyn qaabka Rooble iyo xulafadiisu ay u wadaan iyaga oo sheegay in Rooble ka daayo doorashada wax walba oo caqabad ku noqonaya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa doonayay inuu dhaariyo xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya siga laga dheehan karo warqad ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka FID uu gadaal ka riixayo qorshahan waxa gaashaanka u daruuray maamul goboleedyada Koonfur Galbeed oo hogaamiye Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo maamulka Galmudug oo hogaamiyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Professor Axmed Khadar oo aan wax ka weydiinay su'aalo ku saabsan dhinaca sharciga ee qorshaha ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa yiri ra'iisul wasaaraha xilgaarsiin awood sharci ah oo ma laha dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya taariikhda aynu dib ugu noqonay ra'iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid muxuu dhaarin waayay baarlamaankii 10aad ra'iisul wasaarihii hore Cabdiweli Gaas muxuu dhaarin waayay baarlamaankii 9aad sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cabdi Allah u naxariistay maxaa u dhaarin waaye baarlamaankii ka koobnaa 550 ra'iisul wasaaruhu waxa uu doonayaa inuu horistaa ku sameeyo oo shahaadada u diido qayb kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ayuu yiri Professor Khadar Aadan oo la hadlay run sheeg TV ra'iisul wasaaraha damaacigiisa kaliya kuma ekay inuu kursiga Fahad Yaasin hor istaago balse waxa uu rabaa inuu hor istaago dhammaan kuraasta ay gacanta ku haysato Villa Soomaaliya isagoo oo ka urinaya madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa sidoo kale caqabad weyn ay ka taagan tahay kuraasta 16 Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iskuma fiicno isku siyaasad uma wajihi karaan kuraasta halkaasi taala oo iyaga laftirkooda ayaa kala shakisan 16 kursi ayaa la garbaharay waxa halkaasi ciidamo dheeraad ah geeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah ciidamada nabad sugidda si ay qayb uga noqdaan ilaalinta kuraasta halkaasi taala Rooble waxa uu qayb ka yahay sida wararku sheegayaan dadka lagu soo rogay cunaqabataynta fiisa iyo mid dhaqaale waxaana hadda doonayaa inuu waqtiga sii dheereyso
si uu dhaqaale badan uga abuuro dalkeena. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah ciidamada Puntland ayaa howlgalla culus iyo duqeymo ka fuliyay buraha Galgala. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howlgallo ballaaran oo ciidamada difaaca Puntland ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah dhulka buuraleyda ee gobolka Bari halkaas oo ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab. howlgalkan ayaa waxaa lagu beegsaday deegaanada Dhagax Dhubuur iyo Habar Hagoogan ee silsilada Golis gaar ahaan Galgala sida ay shaaciyeen saraakiisha ammaanka. ciidamada ayaa goobahaasi ku qaaday duqeymo iyo weeraro toos oo ay ku beegsadeen xogo ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa halkaasi. saraakiisha ciidamada ee horkacayay howlgalka ayaa sheegay ama bashaaca ka qaadayba in ay khasaare xoogan gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab ayna kala wareegeen saldhig ku yeelay halkaasi. sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana ujeedkoodu yahay sidii looga saari lahaa deegaankaasi. ma jiro dhanka kale ilaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay guulaha ka sheegteen ciidamada sida gaarka ah oo tababaran ee Puntland. xaaladda deegaanka lagu dagaalamay ayaa haatan kacsan waxaana dadka deegaanka soo wajahday cabsi la xiriirta dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan amaba ka socda buuraleyda gobolka Bari. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa xayiraado horle ku soo rogay madaxda Soomaaliyeed kadib doorashada oo dib u dhacday kadib markii dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyadu ay ku guuldareysteen dhamaystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekeyd 15 Maarso. Mareykanka ayaa sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ah ee lagu soo rogayo xayiraadda fiisa. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay iyadoo oo raacaysa siyaasadda ay ku dhawaaqday 8 Febraayo ay qayb ka ah sharciyada socdaalka iyo jinsiyadda inay xadidayso bixinta fiisaha kuwa la rumaysan yahay inay carqaladeynayaan hanaanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. Mareykanku waxa uu si weyn u taageerayaa dadka Soomaaliyeed iyadoo sida ay ugu ogtahay dimuqraadiyadda. waxaan kordhinaynaa tirada shakhsiyaadka Soomaaliyeed ee lagu hayo xanibaadaha fiisaha kuwa ku howlan wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. inkastoo dhowrkii toddobaadii la soo dhaafay horumar laga sameeyay doorashada aqalka hoose lana doortay tiradii ugu badneed ee baarlamaanka, haddana dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay weli jiraan warbixino lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan khaladaadka ka dhacay habraaca doorashada saxafiyiinta iyo xubnaha mucaaradka oo lagu sameeyay cagajugleen iyo xarig. ugu dambeyntii waxa uu sheegay Mareykanku inuu wadi doono siyaasadda isla xisaabtanka taasoo sheegay in uu lagu taageerayo soo gabagabeynta degdega ee hanaanka doorashada Soomaaliya si loogu kalsoonaan karo oo hufan. Mareykanka ayaa ka gaabsaday in uu shaaciyo magacyada shakhsiyaadka uu ku soo rogay ama hadda uu ku soo rogayo cunaqabateynta dhinaca fiisaha dalku galka. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah Galmudug iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa ka wada hadlay wax ka qabashada abaaraha dalka ku dhuftay si gaar ah deegaanada Galmudug. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shirar isdaba joog ah la yeeshay hay'adaha caalamiga ah iyo saaxiibada taageera Soomaaliya. waxay labada dhinac ka wada hadleen sidii ay wax looga qaban lahaa abaaraha iyo sidii xooga loo saari lahaa horumarinta dhinacyada caafimaadka ee deegaanada Galmudug. sidoo kale hay'adaha uu la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa waxaa ka mid ahaa hay'adaha lagu kala magacaabo ICRC Italian Cooperation iyagoo dhammaantood ballan qaaday in sanadkan ay ballaarin doonaan howlaha ay ka wadaan deegaanada Galmudug. waxaan rajo badan ka qabnaa in muddo kooban la arki doono miradhalka shirkaasi ee kala duwan ee hay'adaha caalamiga iyo saaxiibada taageera Soomaaliya aan kula yeeshay magaalada Nairobi ayuu yiri Cali Daahir Ciid madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug. maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada xilligan abaartu ayaadka u saameysay waxaana ilaa hadda aan jirin hay'ado gargaar oo gurmad gaarsiiyay halka madaxda dowlad goboleedka Galmudug ay ku mashquulsan yihiin arrimaha doorashooyinka dalka. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkaad ka daawanaysa Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaa subscribe noo saadhaan like-na nagu dhiirigelisaan gambalelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle.